musharaxiinta Soomaaliya iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada oo muddo xulafo siyaasadeed ah ayaa u muuqanaya in hadda laba jiho ay u kala jeesteen oo damacu iska hor keenay. midowga musharaxiinta ayaa ka war helay qabiyo qoraalka hindisaha habraaca xulidda ee ergooyinka doorashada oo la filayo in dhawaan la soo saaro, taasi oo ay aad uga soo horjeedaan isla markaana saameyn xoogan ku yeelanaysa. sida ku cad qabiyo qoraalka hindisahan oo ay aragtay caasimada online wuxuu awood badan siinayaa madaxda dowlad goboleedyada, taasi oo keeni karta inay ku soo saartaan xildhibaano iyaga doonaya meeshana ay kaga saaraan xildhibaano badan oo ah kuwa caan ah oo hadda kursiga ku fadhiya. midowga musharaxiinta ayaa ka cabsi qaba in hindisahan uu sahlo in doorashada xildhibaanada golaha shacabka loo musuqmaasuqo si la mid ah tan aqalka sare oo madaxda maamul goboleedyada ee cidda ay doonaan ay ku soo saartaan. madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland oo xulafo la ahaa midowga musharaxiinta ayaa wax ka og hindisahan, taasi oo muujinaysa kala tagooda. sida muuqata musharaxiinta mucaaradka iyo Axmed Madoobe iyo Dani oo markii horeba isbahaysi ahaa ayaa hadda ku kala tagi doona damac iyo dana siyaasadeed, waxayna noqon doontaa markii ugu horeysay ay isqabtaan saamilayda siyaasadda ee ku midoobay madashii badbaado qaran. dhinaca kale, guddiga doorashada heer federaal ayaa qoraal kooban uu Facebook soo dhigay ku yiri dhammaan daneeyayaasha siyaasadda iyo bulshada Soomaaliyeed waxaan ku wargelinayaa in aanay jirin wax habraac doorasho golaha shacabka ah oo uu baahiyay guddiga hirgelinta doorashada heer federaal. hase yeeshee waxaa xusid mudan in hindisahani uu yahay qabyo qoraal oo aanay weli guddiga ka soo bixin, taasi oo macnaheedu yahay in guddiga ay beeniyeen kaliya inuusan iyaga ka soo bixin balse ay beenin jiritaanka qabyo qoraalka. haddaba maxaa ku qoran hindisaha xulidda ergooyinka doorashada ee la filayo in la soo saaro? waa kuwan liiskooda. 1. ergada doorashada ee ka kooban 101 erge ee ka codeynaya dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxaa soo xulaya duubabka nabadoonada ka diiwaangashan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo bulshada rayidka ah oo ka wada tirsan qabiilka ama jufooyinka wadaaga kursiga. sidoo kale ergada Banaadiriga iyo Somaliland ee ka codeynaya Muqdisho waxaa soo xulaya duubabka nabadoonada iyo bulshada rayidka oo ka wada tirsan qabiilka ama jufooyinka wadaaga kursiga ee la isla ogol yahay, waxaana dabagalaya oo korjoogteynaya xafiiska ra'iisul wasaaraha. 2. liiska ergada kursi kasta waa in ugu yaraan ay ku jiraan tiro 31 haween ah. 3. xubnaha bulshada rayidka ee ka qayb qaadanaya xulista ergada waxay ka kala imaan doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida haweenka, dhalinyarada da'aadooda ay u dhaxayso 18 ilaa 30 jirada, dadka baahiyaha gaarka ah qaba, culimada, ganacsatada iyo aqoon-yahanada ka soo jeeda jufada ama jufooyinka kursiga wadaaga. 4. xubin kasta oo ka mid ah xubnaha xulitaanka ergada kama tirsanaan karto guddi xulis ergada kursi kale marka laga reebo jufooyinka wadaaga ergada. 5. xubin ka tirsan xubnaha xulitaanka ergada ma noqon karo ergo ama musharax doorasho u tartamaya. 6. xubnaha xulitaanka ergada waxay u soo xulanayaan ergada doorashada si wadar ogol si waafaqsan habka qaybsiga beesha. 7. kooramka codbixinta ergada wuxuu ansax noqonayaa marka ay joogaan ugu yaraan 3 meelood 2 meel. 8. si loo hubiyo hufnaanta amni iyo sugnaanta ergada liiska ergada ee kursi kasta waxaa hubinaya guddi hoosaadka amni iyo arrimaha guddiga ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka si looga hortago faragelinta argagixisada iyaga oo ka hubinaya hay-adaha dambi baarista iyo xasiloonida amni darada amni. sidoo kale kuraasta Somaliland iyo Banaadiriga waxaa hubinaya hay-adaha amni waxaana korjoogteynaya xafiiska ra'iisul wasaaraha.